ninkan yaa Siciid Cabdullaahi Deni ma ka hadli karaa baarlamaan xil cid ka qaaday ama baarlamaan cid xil ka xayuubiyey isaga oo gacan ku dhiigle ah بالضبط كلمة داس كعن كديجله ويرري حرنتي برلمان كبتلان ودر أسقو ماملكم مدحوينا كاها كب انتو ويرري كل إلى ردي تشوكتي وديجو دي وقيانو عن ميت كودي لاسين حدنا كوي تشوكي انتو لباتكم $1 وقيبيي يري عضية لا يبدون اسم لها $3,000 intuu qaybiyay 58 xildhibaan ayuu habeenkii wuxuu siiyay $20,000 xaqiiq ma aha waxaan been ku been abuuranayo ma aha waxaan iska mumarayo waa xaqiiq cad oo dhaba oo cadaan isagoo waxa sameeyay oo gacan ku dhiglahaas oo sharci darro waan sameeyay kow weerar iyo dil gacan ku dhignimo haddana laaluush hantidii ummadda u adeegsaday iyadoo waliba tiro badan oo $20,000 ku bixiyay inuu gudoomiye meesha ka saaro isagoo dastuurkii Puntland ku tuntay oo jamiyay waxa raaca haba yaraatee oo ama golaha baarlamaanka ku leeyahayna aan loo marin xilka qaadistii gudoomiyenimada dhoobo aan dastuurna aan loo marin ma ka hadli karaa maanta dastuur baa la jabiyay ama raac baa la marin ama cid baa xilkii laga qaaday miyaan afkiisa iyo dhagihiisu ismaqlayn ilo sheedhow ama umulba miyaanu xisaabtanin miyaanu wuxuu ku hadlayo waxa kaga soo noqon kara garan karin miyaanu fahmi karin waxa uu shalay sameeyay maanta inuu cud ka eedeeyaa inay dhaawac isaga gaadhaya iyo sharaf darro iyo karaamo darro ay tahay Soomaalidu waxay ku mahmahdaa isma arkaa islaam rogay isma arke baa islaam rogay waayo ninkii shalay wixii looga sameeyay oo maanta ka hadlayo oo cid baa sharci darro xil lagaga qaaday anigu hore waxaan u sheegay Soomaaliyeed ama reer Puntland Deni inuu marmar caadinimada ka baxsan yahay horaan u sheegay wada hadalladii horaan ku soo daray laakiin maanta uu buu maqaanti furay waayo hadduu nin caqligiisu shaqaynayo ama caqli saliimi ku jiro ama wuxuu garanaya ama siyaasadda wuxuu ka fahamsan ama wuxuu inay ku soo noqonayaan miyuu ka hadlaa maanta xil okay miyuu ka hadli karaa xil cid laga qaaday isaga oo og ama uguba gacan dheeraa 6 December 2014 Cabdiwali Sheekh ninka ugu gacan dheer oo xagga hore soo fadhiya waan habraacna u marin wax kale oo marin miyuu ka hadli karaa maanta xil laga qaaday ra'iisul wasaare waxaan leeyahay oo aan taa ku gabagabeynaya Deniyow dhagahaaga iyo afkaagu hays maqleen ficilkaaga iyo qowlkaaguna hays waafaqeen mas'uuliyaduna sidaas maaha qofka ibnu aadanka ahi inuu ismayro ama ismasaxo waxay tusinaysaa in mentally uu wax u qabo ayay tusinaysaa intaas ayaan kaga gudbayaa su'aashaas iyada ah okay Deni shirkii meesha la yiraahdo galmudug ama caasimadda Dhuusamareeb la isugu tagay wax maslaxad Puntland ama wax ajanda ah oo ka turjumaya dalka uu leeyahay madaxweynaha ka ah ama maamulka uu leeyahay madaxweynaha ka ah ma la tagay mise tororagiyo wuxuu la tagay iyo doorasho inuu ka hadlo su'aasha jawaabteedu waxay tahay waa maya lama uu tegin waxa ajanda oo Puntland leedahay lama uu tegin xataa ku ka hadlayay oo mucaaradayay oo baarlamaanku ansixiyay kama uu hadlin oo markuu Puntland joogay mar halkaas xiliyo burburan ku leeyahay oo ka hadlayay xataa kama uu hadlin okay maslaxad kale oo Puntland kama uu hadlin tii taagnayd oo waliba maslaxadda ugu muhiimsan ahayd ee ardayda iyo waxbarashada ee taabanaysay Puntland arrimaheeda bulshada especially waxbarashada kama uu hadlin waxyaabihii Puntland ka xanimnaa oo mashaariicdii ahaa Puntland ka xanimnaa oo ilaa qorsheynta qaranka waxba kuma dirsan iyo unbu meel la fadhiyay wixii u soo mari lahaa qorsheynta qaranka oo Puntland maslaxadaheeda ahaa waad ogtihiin wasaarad iyo hay'ad shaqaysa ma jiraan baabada u xiran waxa uu xirina waa in yada oo meesha la fadhiyo
إلا وحول بعد دولة رسمية دنقو يا شيء ورشين تقرأ يصومر لها إن يو كما وهلم تي أرضيدا ساعة سوشيا كما وهلم مشاريع كلو بطلان إن وحلو قبطو أما دولة وحسو ديسو أما أي لشقيسو أما مشاريع قصدا كما هلم وحاوكو مشكور سنة كريه دور الشدة لبكم راتنا لبكم كوية راتنا أيو كل جلاء وكل دلاء وحكى لنا كموسى قادم إسلام مركينا وحوموتشي حاجات سجاشن دقيقة جيس كذا كريم مستاجي ووصلوا أمان كردوا دعي مدحوينها الدولة ده محمد عبد الله فرماتش أو شيء إن وحلو كذا شيء يشري واللي يسكت دير يشري وحنا سيعني يشري وعمر كان لياله سعيد عبد الله يدني عدة وشقيه يمام الكو حكومة مدحوينها وياهي عدة أقوم مقن هاوشي أما مسؤولية دي وهاي عدة أقوم مقن كان عندي دونتان شدوه أما مسلحة هذا أما وحب بدنا كحن تشوسي دونت أما دولة حكي حلو غير هذين دونت أما عالم بقى سؤال شاس